maalin wanaagsan ayaa daawanaysan dowladda waddanka Kenya ayaa waxay sheegtay in ay dacwad ka gudbin doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Cornel Kairos Oguna ayaa xalay warbaahinta kula hadlay madaxtooyada Kenya ee magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka xoogaystay ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo go'aanka ay qaadan doonaan. waxa uu sheegay in Soomaaliya go'aankii ay xiriirka ugu jirtay uu ahaa mid ay ku degdegeen hase yeeshee labada dal ay yihiin kuwa daris iyo waliba walaalo ah isla markaana aysan ka argoosan doonin isagoo sheegay in ay dacwad ka gudbin doonaan. dowladda Soomaaliya waxa ay ku degdegtay ma ahayn annagu walaalahooda in ay xiriirka noo jiraan waxaan nahay daris iyo saaxiibo aan kala maarmin haddana kama argoosan doono balse waxaan cabashadeena aan u gudbin doonaa IGAD ama COMES iyo waliba African Union si noola heshiisiyo ayuu yiri afhayeenkan u hadlay dowladda Kenya. sidoo kale afhayeenka dowladda Kenya Mr. Oguna waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Soomaaliya aan looga baahnayn in heerkaasi ay gaarsiiso khilaafka kala dhaxeeya waxa uu ku baaqay in ay wada hadlaan si loo xalliyo wixii ay kala tabanayeen lana dhameeyo khilaafka jira. khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xoogaystay waxaana taasi ay keentay in dowladda Soomaaliya ay dalka ka saarto safiirkii Kenya sidoo kalena ay u yeerto safiirkii u joogay dalkaasi iyadoo 20ka bishan dalka Djibouti lagu qaban doono shir uu soo qaban qaabiyay urur goboleedka IGAD kaas oo lagu hadlayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.